taayarkan magaciisu wuxuu ahaa Robert. Wuxuu ahaa taayar nool oo dareen leh. Robert ciida ayuu iska ruuxay jirkiisa, si kibi leh ayuu isu taagay. Farxad ayuu ku rogmaday. Intuu jidka marayay ayaa dhalo caag ah oo biyo ah hortiisa timid. Robert si tartiib ah ayuu ugu soo dhawaaday dhaladii. Dabadeed xoog ayuu ku burburiyey. Wuu sii rogmaday, balse markiiba wuxuu la kulmay caqabad kale, dhalo adag oo biir ah. Robert marar badan ayuu isku dayay, laakiin ma uusan jebin karin. Caradiisu aad bay u sii kacday. Dhowr tallaabo ayuu dib u guray. Jirkiisa oo dhan ayaa bilaabay inuu gariiro. Markaas wax yaab leh ayaa dhacay. Robert wuxuu isticmaalay awoodiisa maskaxda si uu u burburiyo dhaladii. Wuu sii rogmaday ilaa uu gaaray wadada dhinaceeda. Gabar qurux badan oo la oran jiray Sheila ayaa baabuur ku agmartay. Robert markiiba wuu ku dhacay jacaylkeeda. Robert oo damac badan ayaa rabay inuu u dhawaado Sheila. Wuxuu adeegsaday awoodiisa maskaxeed ee cabsi leh. Wuxuu ka dhigay baabuurkii Sheila inuu istaago wadada dhinaceeda. Kadib si degdeg ah ayuu ugu rogmaday dhankeeda. Sheila ma aysan dareemin taayarka soo dhawaanaya. Waxay isku dayday inay baabuurka dib u shido, laakiin markasta oo ay isku daydo wuu diiday inuu shaqeeyo. Isla waqtigaas Robert wuxuu diyaar u ahaa inuu u dhawaado, laakiin si kedis ah nin wata gaari pickup ah ayaa xawaare ku dhaafay. Si kama ah ayuu Robert ugu dhuftay isagoo hawada ku tuuray. Robert isagoo miyir beelay ayuu dhinaca wadada yaalay. Wuxuu waayay xakamayntii baabuurka Sheila. Sheila way yaabtay markii baabuurkeedu si caadi ah mar kale u shaqeeyay. Degdeg ayay meesha uga dhaqaaqday. Ma aysan ogeyn in taayar damac badan uu daba socdo. Robert wax yar kadib ayuu soo miyirsaday. Isagoo ka caraysan in la jiiray ayuu caro ku daadshay tuke aan waxba galabsan. Wuxuu bartilmaameedsaday tukihii. Wuxuu sii daayay awoodiisii dhimashada. Ilbiriqsiyo gudahood tukihii miskiinka ahaa waa la dilay. Haddii aad nagu cusub tahay, ha moogaanin muuqaalada xiisaha leh. Subscribe saar, like dheh, sharana la wadaag asxaabtaada. Isagoo weli xanaaqsan ayuu Robert raacay ur ilaa uu ka gaaray xarun shidaal. Halkaas ayuu ka helay ninkii ku dhuftay. Ninku ma ogeyn in taayar dilaa ahi daawanayo. Intii uu ninku diyaar garoobayay inuu baxo ayuu arkay taayar agyaal. Taayarku si xoog leh ayuu u gariiray. Ninku wuxuu mooday wax aan caadi ahayn, laakiin weligiis ma uusan malayn karin inuu dili karo. Robert wuxuu adeegsaday awoodiisa wuxuuna markiiba dilay ninkii. Kadib Robert wuxuu ku rogmaday wadada weyn isagoo weli ka fikiraya Sheila. Wuxuu si fiican u xasuustay urkeeda. Wuxuu raacay ilaa motelkii ay Sheila deganayd. Robert wuxuu helay qolkeedii. Albaabka ayuu wax yar furay. Si damac leh ayuu u daawaday jirkeeda. Sheila ma aysan ogeyn in taayar basaasanayo, laakiin waxay dareentay in albaabku uusan si fiican u xirnayn. Degdeg ayay u qufulatay. Si kastaba ha ahaatee, Robert ma uusan quusan. Markii habeenku dhacay ayuu si dhumasho ah ugu galay qolka ku xiga kan Sheila. Wuxuu go'aansaday inuu beri si dhow ugu dhawaado. Xitaa sariirta ayuu fuulay. Farxad ayuu tiiga u daawanayay. Subaxdii dambe haweeney nadiifiye ahayd ayaa timid si ay qolka u nadiifiso. Waxay aragtay tiiga oo weli shidan. Go'aankii sariirta ayaa wasakhaysnaa. Markii ay maqashay biyo socda oo musqusha ka imaanaya ayay daaha jiiday. Naxdin ayay la dhacday markii ay aragtay taayar qubaysanaya. Nadiifiyihii waxay mooday in taayarka uu marti kaga tagay. Way cayday kadibna banaanka ayay ku tuurtay Robert. Laakiin wax yar kadib Robert mar kale ayuu istaagay. Si aamusan ayuu dib ugu rogmaday qolka. Markan wiilka milkiilaha motelka ayaa arkay. Aad ayuu ula yaabay. Wuxuu u orday inuu aabihii u sheego. Wuxuu yiri wuxuu arkay taayar nool, laakiin aabihii wuxuu mooday kaftan. Wuxuu ku yiri pizza u soo iibso. Intii wiilka maqnaa Robert wuxuu dilay haweeneydii nadiifinta ahayd. Dilkii kadib Robert ma uusan bixin. Halkii ayuu ku booday barkada motelka. Wuxuu dul sabaynayay isagoo iska raaxaysanaya. Markii wiilkii soo laabtay ayuu galay qolkii Robert joogay. Wuxuu arkay meydkii haweeneydii nadiifinta ahayd. Degdeg ayuu booliska u wacay. Wuxuu askarta geeyay barkada. Wuxuu u sheegay inuu arkay taayarka oo qolka galay. Aabihii wuxuu mooday wiilkiisa inuu been sheegayo. Wuxuu ku yiri taayarka soo saar. Wiilkii ayuu jiiday banaanka. Boolisku waxay yiraahdeen waa taayar caadi ah, laakiin wiilku wuxuu ku adkaystay inuu nool yahay. Aabihii wuu xanaaqay. Wuxuu wiilka ka riixay dhinac. Si qalafsan ayuu Robert dhulka ugu tuuray. Eebtaas ayaa Robert aad uga caraysiisay. Intii boolisku su'aalo weydiinayeen aabaha ayuu Robert si kedis ah u istaagay. Si xoog leh ayuu u gariiray. Wuxuu sii daayay awoodiisii dhimashada. Madaxa aabaha ayaa hortooda ku qarxay. Lieutenant Kat aad ayuu u naxay. Robert ayaa rogmaday isagoo baxsanaya. Katna cabsi ayuu la gariiray. Hadda Kat wuxuu rumaystay in taayarku yahay dilaa. Markii dambe Robert wuxuu ku nastay wadada dhinaceeda. Wiilkii milkiilaha ayaa mar kale yimid. Ma uusan ogeyn in aabihii dhintay. Wuxuu isku dayay inuu la hadlo Robert, laakiin Robert si xanaaq leh ayuu uga dhaqaaqay. Wiilkii wuxuu ku noqday booliska. Wuxuu u sheegay in Robert wadada marayo. Booliskii ayaa dabagalay. Laba askari ayaa ku helay wadada weyn. Robert mid ka mid ah markiiba ayuu ku dilay awoodiisa. Wuxuu sii rogmaday meel fog. Wuxuu gaaray warshad lagu gubo taayarada. Halkaas ayuu ku arkay taayaro ay dadku burburinayaan. Robert aad ayuu u carooday. Wuxuu ku dhaartay inuu u aargudi doono noociisa. 3 maalmood kadib meydad madax la'aan ah ayaa laga helay magaalada dhow. Dhammaantood Robert ayaa dilay. Boolisku dabin ayay u dhigeen. Waxay heleen Robert oo tii ka daawanaya guri uu qof dhibana ahaa. Waxay ogaadeen inuu damac badan yahay. Sidaas darteed Kat wuxuu la yimid qorshe. Waxay dhar dumar ku labiseen manaqwiin. Waxay gudaha ugu qariyeen bam. Waxay ugu yeereen Robert si ay u soo jiitaan. Robert si xiiso leh ayuu ugu rogmaday, laakiin wuxuu ogaaday in manaqwiinku aanu dhab ahayn. Isagoo xanaaqsan ayuu madaxa ka jabiyey. Kadib qolkiisii ayuu ku noqday. Qorshihii bamka wuu fashilmay. Kat aad ayuu u xanaaqay. Qorigii ayuu qaatay. Qolka ayuu xoog ku galay. Qof walba wuxuu moodayay in Robert dili doono, laakiin dhowr xabadood kadib Kat ayaa ka soo baxay isagoo haya jirkii burburay ee Robert. Dadku waxay rumaysteen in Robert ugu dambayn dhintay. Laakiin markii boolisku baxeen kadib nin kursi curyaan ku fadhiya ayaa arkay wax cabsi leh. 3 lugoodla caruur ayaa ka soo baxay qolka. Wuxuu garwaaqsaday in 3 lugoodlahaasi yahay Robert oo dib u soo noqday. Ka hor intuusan baxsan 3 lugoodlihii wuxuu adeegsaday awoodiisa wuxuuna madaxa ka qarxiyey. 3 lugoodlihii wuxuu ku rogmaday wadada isagoo meel laan socda. Wax yar kadib taayaro badan ayaa miir yeeshay. Waxay daba socdeen
socdeen saddex lugoodlihii iyagoo diyaar u ah inay baniaadamka weeraraan